guud ahaan waddankan Kenya waxaa maanta oo 8 bisha Agoosto ka bilowday doorashada madaxtinimo ee waddanka Kenya. dad ku dhow 20 milyan oo Soomaali Kenyaan ah iyo dadka u dhashay waddankan Kenya ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee waddanka Kenya iyagoo codkooda dhiibanayay. musharaxiinta ugu cadcad waddankan Kenya ee madaxtinimada dalka sanadda 2017 ayaa waxa ay kala yihiin madaxweynaha waqtigiisu dhamaanayo ee Uhuru Kenyatta oo hogaaminaya xisbiga Jubilee iyo ra'iisul wasaarihii hore ee waddankan Kenya Raila Odinga oo isna horkacaya xisbiga NASA. qaar ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah oo maanta codkooda dhiibanayay ayaa waxa ay ka hadlayaan dareenkooda sida uu ahaa. magacaygu waa Musharraf Xasan waxaan u imaaday inaan codeeyo waxaan imaaday saaka 3 subaxnimo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo xaafadan isku soo baxeen sidii ay u codeeyaan waan u jeedaa hadda sidaad aragtiisid codeyntii way socotaa wax yar baan nooga hartay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan codeeyo waxaan deganahay Islii waxaan qaasatan jaamka waxaan ku faraxsanahay sida nabad ay u dhacday meeshan aan safar ku jirno waliba aan filayo si nabad inay ku soo baxdo resultka aan sugayno insha Allah waxaan u rajaynayaa guul dawladda qaadato midii nabada Ilaahay nooga dhigo peace Kenya and peace Somalia insha Allah waxaan taaganahay Islii High School waxaan saakaan soo galay inaan codeeyo marka waxaan insha Allah taala jeclahay inay nabad iyo ay ku dhamaato Soomaalidana maanta codeynayso waxaan insha Allah taala jecelnahay qofkan wadano aan jecelnahay inuu soo baxo biidin albari marka saasa maanta waxaan u taaganahay insha Allah Nuur Ali waxaan ka rajaynaynaa nabadgelyo iyo khayr noogu dhamaato iyo nabad kulliba codbixinta waxay u socotaa si habsami leh ayay u socotaa kulliba saaka aniga anoo jaam iyo ka cabsanaya iyo isburasho ayaan saaka xaafadayda iska soo quracday hadda saacadda la joogo 6 saac ayaan meeshii soo galay kulliba haddana waxa muuqata sidii doorashadii hore hadda si ka fiican inay u socoto waxa muuqata in maaragtay laymankii la hagaajiyay muuqato lambar lagu raadiyo la keenay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii doorashadu u socoto Umar Aaqil SNTV Nairobi.